سفيرka Soomaaliland u fadhiya dalka Jamhuuriyadda Djibouti Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed ayaa maanta xafiiska safaaradda uu ku leeyahay dalka Jamhuuriyadda Djibouti ku qaabilay Dr. Adna Aadan Ismaaciil gudoomiyaha guddiga wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ee uu dhawaan u magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo markii ay soo gaadhay Dr. Adna Aadan Ismaaciil safaaradda Soomaaliland ee ku taala dalka Jamhuuriyadda Djibouti waxaana ugu horreyntii gacmo furan ku soo dhaweeyay safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Jamhuuriyadda Djibouti Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed runtii maanta waxaan aad ugu farxo ayaan arkay waxaan soo booqday safaaradda ama xafiiska xiriiriyaha ee Soomaaliland ku leedahay dalka Djibouti Jamhuuriyadda Djibouti anigoo dhowr jeer hore u imid xafiiskan isbedel weyn baan arkay isbedelkan arkay ma aha qalabka la bedelay oo kaliya laakiin si isbedelku wuxuu ku imanayaa hanaanka diblomaasiyadeed ee aan maanta halkan ku arko xiriirka saaxiibtinimo ee la soo kordhiyay baan ku faraxsanahay xiriirka saaxiibtinimo ee dalka martida loo yahay iyo ixtiraamka loo hayo aan arkay ayaan aad ugu faraxsanahay xiriirka dawladaha halkan ku leh safaaradaha ee xiriirka la yeeshay ee uu safiirka Cabdifataax uu la yeeshay ayaan aad ugu faraxsanahay waxaan leeyahay hooyo Ilaahay kula qabto sharaftii laga filayay baad u yeeshay xafiiskan إلهي هاوشها كل قبته إلهي كأبال مريو دتك أمضى Soomaaliland قاعد متشاف وحن أشياء إن قف مسؤولي ومثله محمد جامع عوالي تلفزيون قرن كالصوماليلاند Djibouti